السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك كحرا فاتوش فاميلي سودا ووادا وولاشيم فاتوش كان لك داوني سينا فاتوش فاميلي ما أنتو عربا موضوعي بدنا أنا كهذا فرست موضوع عن كهذا ربا وحوي immigration كا dadka borderka soo gudbaya iyo tala aan Soomaalida u hayo ee Biden oo sharciyada wax ka bedeli doona sidoo kale waxaan ka hadli doonaa programka asxaabtan isoo weydiisay guaranteed income-ka oo laga bilaabaya Iowa especially Des Moines marka waxaan rabaa inaad subscribe saartiin channelka asxaabtiina nagu soo biirisiin aad baad u mahadsantihiin sida noogu xirantiin markasta subscribe share and like asxaabta aan la socono dukaan ay waxaan ka furno Minnesota Southern Mall second floor 2815 Fatush Home Decor ayaa ku qoran nala xiriir insha Allah dukaankayga hope inay imaatiin ay ka adeegatiin insha Allah alaabta guryaha lagu qurxiyo iyo alaabo kale badan ayaan haynaa daahiyo gooyaal wax kasta adiga sharaxaad ku saabsan guriga hadii ilaahay idmo balanteen waa telefoon number waa naga soo wici kartiin oo xagaas oo aad ka sameeysan kartiin shipping-ka isteediyada kale ama delivery hadaa u baahan tahay twin series-ka in lagu keeno aad u maasantiin marka hadii aan ku hormaro qaxootiga ama dadka ka soo gudbay borderka ayaantan horta aad waxaad arkaysaa social media-da in dadkeena ay aad u xayeysiinayaan in lugta la soo furan karo oo wadankan la joogna America ay dad soo galeen dadna soo geli doonaan laakiin inta aadan tilaabadaas ku dhaqaaqin ama lacag laga cunin waxa aad markasta aqrisaa wadanka sharcigiisa hadda waxa la yiri maadaama dadkii ay faraha ka bateen oo ay soo galayaan waxa jira sharciyo la hirgeliyay sharciyadaas oo Cuba-niska Venezuela wadamadaas afar wadan in amal ay afar wadan waa ayay saameynaysa waagi lagu dhawaaqay taasoo ah inuu qofku intuusan wadankan lagu soo galin inuu soo codsan karo uu soo apply gareyn karo oo xagga soo wadankiisa jooga uu magangeliyo soo dooran karo wadankan iman kara kaliya u baahan yahay in qof uu mas'uul qaado lacag haysto amal kale oo inta lagu siin karo warqada shaqada oo inta ka shaqeyn karo kadib waxa la way yareysay qaxootigii markuu saas lagu dhawaaqay because sharci laguma siinayo aliiri hadii aad wadankan xoog inta ku soo gashay adoo soo weydiisan asaalamsi yani magangeliyo hadda waxay saameyn doontaa dadka oo dhan sharci ayaa soo socda taasoo lagu xalinayo dadkan iska soo galay wadanka marka meeshaan ayaa ka soo gali doonteen hadda kadib waxa dhaay wiigagan soo socdo soo baxaya sharcigaas qof wadankan iska soo galay oo lugta soo jabsaday oo yacni aan soo weydiisan magangeliyo wadamada kale yacni wadamadu soo cross garaynayo inaan la aqbali doonin oo illegal tahay sharci laguma siina yacni lama aqbali doono in aad magangeliyo doon tahay waa si fiican u dhageystay maxay ku taray hada inta ababa tiraad oo soo qardijay oo darbiga ka soo boodi hadii lagu dhaha wadankan sharci laguma siinayo hada dhinacaas ku timid waa wax adag waa wax la dhayalsada ma imagine adoo ilaa inta Nairobi meel kasta qab sabab hada ihtimaal inta soo jeexday wadanka marka imaata sharci ma lagu siinayo because of the way aku imaata dilgu soo xumaanha so marka hore sharciyada iska aqriya haduu soo baxaya waxa qof kasta lagu qasbi doona in uu wadamada uu soo cross gareynayo ilaa meeqa wadan soo jara 3-4 soo jara hadii wadamadaas asagoo joogin uu soo codsanin inuu magangeliyo soo weydiisanin inaysan waxba ka tiri doonin marka lacag ayaa leen ka dhamaysan adiga askala choice ko soo bixi kartaa laakiin markasta soo baxaysid make sure in sharciga akhrisid soo sharciga haduu hirgalo waxay ku taraysaa mar hadda istii wadamadan Cuba aan ku sheegay waxa la yiri boqolkiiba 85 ayay darab gareysay ayuu hoos u dhacay dadkii soo imaanay oo xuduudka soo galay because maxay u sameeyeen because waxa lagu yiri intaan oo wadan hadaa ka timaaday ase adoo aadan soo codsanin adoo wadankaaga jooga waxba kama jiriyo lagu maqbali doono sharcina ma helaysid marka waxa loo furay
wadadaas oo ah in xagga ka soo codsan karaan soo aaday u xuntaado intaas lacag laga soo qaatay marka inta istiraatiijiyadii America joogta dhac isku soo siis ilbira ma balaw aqbalay waa very bad because wadanka ka bixi kartay طبعا بقى حدا dadkii ku guubaabina war soo cararay war soo baxay war soo orday war soo qajajac aliiski waxa ku dhaanta adoo ka faa'iideysatid maxaa dhihi jiray group 5 adoo ka faa'iideysatid because asagaaba la fududeynaya group 5 oo qaxootiga wax kasta iska registeraysid oo xagaas iska diiwaan gelisid inta lacag laga cuni lahaa meesha markii batarq lagu soo siiyo lagu dheela sharci because wadankan hadaadan sharci ku leen sharaf ma jirto sharaf la'aan jirta hadaa shaqaysan karin sharaf ma jirto wadanka sharaftiisa waa inaad sharci haysataa oo shaqaysan kartaa marka sidaas ay ku guubaabinaya sharciga cusub markuu soo baxo ana in la soo socodsiinaya group 5 waa ka faa'iideysan kartaa group 5 ka dad badan ba soo weydiiya bisha lixaad ayay bilaaban doontaa marka adigu qofka dooran karto oo qof inta joogo uu ku dacwoon karo qaas uu kugu soo dacwoon karo oo ah uu ku soo damaanad qaadi karo marka waxa u maleynaya in wadooyin badan la furayo oo ah in dadku ay ku iman karaan wadankan marka ha isqarjijeexnina dad xataa been iskaga duubay arka video dhaaytay door maraan meela wadanka soo mara dadka yaa la hiyo kicinin dadka yaa la baabi'inin dadka yaa sharci darro lagu rid lacagta walaa qof maanta lacag inta 20 ku 40 ku laga soo qaatay meesha soo istaaga bilaa sharci ah waa xanuun waa qofka uu isku dadarsamay America labada bariyo ugu horeysa lagu soo dhaweeyna qof dambe oo ku fiirina oo yaa taa ku dhahay male soo sharciga is very important intiina soo bixin sharciyada iska fiiriya intaas aan ku xaynaa iska sugta group 5 ka baqtiya nasiibka iska xareysta ku soo wadaya group 5 ka bishi lixaad markay laakiin wadada ay soo jeebaaxaysin markasta oo soo jibaaxaysi la soco xaaladda wadanka sharcigiisu ku sugay okay waa fahanteen amaana I hope ina fahanteen sidoo kale reer Iowa asxaabta degan waxa jirta programka uplifting baa loo bixiyay oo laga bilaabo basic income kaas application-kiisu wuu furay 17 ayaa la soo furay 27 bishaan uu isxiraaya application-ka hoos ayaa inii soo dhigi doonaa waxa waay programkan awal ay state-yada kala bilaabeen county-yada kala bilaabeen marka state kasta wuxuu fiirinayaa programkaas uu shaqeynayo sida uu shaqeynayo hadda kan Iowa 110 qoys ayaa markii la apply gareysiin idinka dhan 110 qoys ayaa lala soo baxaya 110 kaas qoys markii la soo xusho waxa la sameeynaya cidii bishii waxa la siinayaa $500 waxay u soconaysaa 2 sano ayaa $500 lagu siinaa oo lagu dhahayaa sidaa rabtid oo isbeengare sidaa rabtid oo isticmaal waxa la fiirinayaa qofka wixii ay ka bedeshay programka sida hore inta soo hadli jiray waa program lagu baarayo qofka wixii ay ka bedeli karto qoyska dabeecad haday noqoto xaq dhaqaale haday noqoto xaq wax qabsi haday noqoto xaq shaqo haday noqoto lacagtan la siiyay oo la iskaga deeqay waxa ay ka bedeli karto iyo waxay u siyaadin karto استديو بدن أيا هراي أسمي هادنا أيوة أيا كوسو بيرت استديو كلام عني كست كوسو بيرة إيه كانوا وعنا سو شير جرين دونا مركا عدي قف كره أيوة إسكا أقري requirement تيجي هوس أيا application كا إني سو دقة يا وين تكفى إذا سنكرتا لبعتن إيه تضبط أيا حرميسا كفى إذا استمرك هدي هذا اللي قدورن ولما لهن كل برنامج مركو صعد هبا كاس مركو دماغه متكا أيا لبلعبة يا وحليرة guarantee income كاس قبل كستا waxa uu la baxay magac sida hada uplifting ayaa la yiraahdaa inuu dadka sare u qaadayo marka ka faa'iideysan kartiin asxaabay linkigan hoose ay digaaya aad ay u mahadsantiin subscribe share saar